السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادو بدبادو أكشن وآلا بقى وقبرتين إن أنا فرصتها الشقوي دي سوق لينو كل بريان ونقول ويا رايح أنت الشقوي كان سوق لنا ما كان كسر إعلامي because of أنا قاكم مشغولة وبردي يو إعلامي تنسوق إعلامي وبردي job skill كا يو capacity development كا therefore هالكن إن شاء الله حمدوني إن سلوك الإيدين كوب شعريو إن أنا ورثي وضنا وأنا سياق وانا أديجي لحية دينا عاسي في قريستا قف كيو بهان سي في جسي الله قرأ له هجاتيو سيو مستقبل كسي في وقت ديرو شقية وهلا أما هو استعمال كرب for the future شابس كدم بق إن أنا أديجي أنا رنتي 24 hours إلى استيا فرد ساعات أنا قف كسي في جسي كلها هجاتينو كلها ديسنو كلها قرحينو أنا قصقل تشننا أنا وحي وعرنا ما أمدرنا هاي أنا قف كمركا كعاون مركا ماذا شايدا waxaa kaloo iyadana aad u muhiim markaa in price aan ku qornay aan fair limit ka dhignay aan koobnay oo iyadana insha Allah qofkii u baahan uu nagala soo xiriiri karo WhatsApp ka 0634862926 oo nagala soo xiriiri karo markaa waxaan doonay hore waxaan galiyaa insha Allah waxaan ka gali doonaa shaqo ay soo xayisiisay hay'adda loo yaqaan Hello Trust waa hay'ad Mina Barisa ka hawlgasho wadamo badan waana hay'ad caalami ah adduunka meelo badan ka shaqeysa meelaha crisis-ka iyo meelaha dhibka xagga explosions materials-ka ay ku badan yihiin position baa loo baahan yahay position isa saar oo ah finance and HR officer waa laba hawlood oo isa saaran waa madaxa dhaqaalaha iyo wixii HR la xiriir HR waa human resource officer therefore position-ka waxa looga baahan yahay Hargeysa waxaa qofka sidoo kale laga baahan yahay inuu visit ku sameyn karo kaamamka Hello Trust ee xafiiska Jijiga ama Jijiga xafiiskooda ku yaala marka qofkani waa qof looga baahan yahay sidoo kale marka inuu maxaa la yiraahdaa safar u gali karo Ethiopia gaar ahaan Jijiga oo booqan karo shuruudaha kale looga baahan yahay in kulli socdaal baa meesha imanaya mar haddii socdaal imaadana meesha waxa imanaysa deena haysato ID-ga Ethiopia ma haysta mustawaqana waan haysan karaysaa qofkani programkiisu wuxuu hoos imanaya project manager-ka program manager-ka hoos imanaya khaasatan qaybta Somaliland waxa kaloo looga baahan yahay qofkaasi inuu internally works with close cooperation with waan la shaqeyn karaya dhamaanba Hello Trust iyo qaybaha shaqaalaha kala duwan deadline-ka shaqadan xirmisa waa 18 bisha 12aad waxa aad loogu dhiirigelinayaa shaqadan inay soo aqbalay garayaan haweenka ama women are highly encouraged baa ku taala waxaad yeelan doontaa qofkaasi lagu baahan yahay waajibaad dhaqaale oo laga rabo inuu ka soo baxo qofkaasi waajibaadka dhaqaale wuxuu ku qoran yahay qaran job page-koodu ku qoran yahay linkiskana insha Allah waan idin soo dhigi karaa xagga message-da hoose at the same time waxa kaloo qofkaasi yeelanaya human resource responsibilities buu yeelanaya maxaad ka taqaanaa ama maxaad ka fahansan tahay waajibaad baa jira laga rabo doono xagga dhinaca HR-ka iyo dhinaca dhaqaalaha labadaas inay qoran yihiin yaani ku kala duwanin marka CV-ga qorisana ama CV-ga xarisansana waana meelahan u eegtaa waxyaabaha competency-ga ku fiican tahay aqoon ahaan qofka waxa laga baahan yahay degree xagga accountancy-ga ah ama finance-ga ingiriisiga waan ku fiican tahay waaniga hore soo sheegay ID-na waa laga baahan yahay therefore marka shaqadan aad doonaysid inaad xarisato CV baad ku diraysaa Hello Trust ama waxa ku diraysaa email-ka la yiraahdo hello hr@ethiopia@gmail.com marka Ethiopia ET baa ku qoran ETH baa ku qoran marka si aan u khaldin ama luqaddan ku qaadan email-ka laakiin fadlan booqo oo ka koobi garayso ama kaaga ciwaanka email-ka waa ka page ku qoran waxa sidoo kale la soo xiriiri doonaa baa leeyahay dadka shortlist-ka ama la soo xiriiray marka shaqada xariistaan halkan waxa iyadana loo baahan yahay oo aan doonayay inaan ka sheego UNICEF hay'adda la yiraahdo in 3 position xagga Soomaaliya looga baahan yahay marka position koobaad ay u baahan tahay maxaa la emergency officer weeyaan waana baydhaba Soomaaliya ayaa looga baahan yahay 15 bisha ayuu xirmi doonaa uu iska dhowdahay ka gaarsii 15 bisha baalkii maxaa la yiraahdaa bishan 12aad waxa kale dib loo soo xayisiiyay oo iyadana dib loo soo xayisiiyay real fatas lagu sameeyay planning monitoring evaluation officer Muqdisho Soomaaliya kulli waxa imaanigi baa ka soo galay imaaniguna waa runtii waa hawsheeda culus tahay qof marka very technical expert looga baahan kara halka 16 bisha ayuu isna xirmay booskaasi booska saddexaad waxa weeyaan social policy specialist
شكر responsive كمدا ومقدشة الصومالية اللي حتى ممكن بشوف حرمية مركا فضلا تعانا هروب إن شاء الله هروب بلاجرة مركا مالها دون سنة بلاجرة يا ربطينا مركا تكنيكال واحد فاهم ويدنا أنا وحي تكنيكال وحي فرسمهانا وحي أقوم جودا نقول عنه مستعد بنكون هاي شقوين كهلا بلاجرة هذا كل عصبت هاي أكاونت كان يوتيوب كبدال أكشن فضلا سبسكرايب صار لايك جري نشر جري أنت سبعة أنا كل حرنا وركبان كل وداقني أدنى أمد لسي وداق خير يا أمانة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.